Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Saaxiibayaal kusoo dhawaada kanaalkan goorta caasimadda. Waxaa qofka bini'aadamka ay soo maraya waqtiyo kala duwan, waqtiyo murugo leh iyo sidoo kale waqtiyo farxad badan. Marka qofku uu seexdo habeenkii wuxuu soo xasuusanayaa waqtiyadii farxadda badnaa ee soo maray iyo maalmihii wacnaa ee soo dhaafay, isagoo rajeynaya in berri ay ka farxad badnaanto maanta. Halka mid kale uu soo xasuusanayo murugooyinkii soo maray iyo xanuunadii ula soo kulmay maalmihii ugu dambeeyay ee noloshiisa. Waxaa laga yaabaa inuu weli niyadda ku hayo xanuuno soo maray sannado ka hor. Waxaa laga yaabaa in midka farxay iyo kan aan farxinba labadooduba inay sabab u yihiin murugadooda iyo farxaddooda. Walaal, farxadda dhabta ah iyo deganaanshaha qalbiga waa midka laga helo raalli ahaanshaha Allah subxaanahu wa tacaala. Ma ogtahay walaal, qalbi Allah subxaanahu wa tacaala ku xiran lehna iimaan dhab ah inuusan marnaba murugoonin, inuusan marnaba cabsan, inuusan marnaba kali noqon, inuusan marnaba khasaaraynin, inuusan marnaba dareemaynin baahiyaha dadka, inuusan ka fikiraynin waxa dhici doona mustaqbalka, waayo waa qalbi Allah subxaanahu wa tacaala ku xiran. Naxariista Allah subxaanahu wa tacaala ayaa miciisa ah. Walaal, Allah subxaanahu wa tacaala ma dayaco addoonkiisa, laakiin waxaan nahay dad ku jira qafle iyo halmaan. Murugadu waxay leedahay dhammaad, sidoo kale farxadduna waxay leedahay dhammaad. Marka aad qalbiga ka hadlayso iyo markaad carabka ka hadlayso, ma ogtahay walaal inaysan isku mid ahayn. Waxaa laga yaabaa in murugooyinka aan ku jirno inagu sababaan dadka qaar kuwa inoo dhow. Walaal, ma ogtahay meel la dego dunida inay ugu wanaagsan tahay qalbi ku jecel. Laakiin ogsoonow, marnaba baaqi laguma sii ahaanayo qalbiyada dadka. Sidaa daraaddeed, bini'aadamku waa kuwa ugu badan ee ku dhaawaca, ku xanuujiya, kuguna sababa inaad nacdid shakhsiyadaada iyo qof ahaantaadaba. Haddaadan ahayn qof aaminsan in insaanka hadalkiisu yahay sida cara yar oo kugu soo biday, waxa kale uma baahna caradaas keliya inaad iska tirtirto ayaa ku filan. Qofka aan jecelnahay waan ku kalsoonaanaa ilaa heer aan aaminno inuusan qiyaamaynin ama naga fogaan doonin. Badanaa kuwa noo dhow ee aan ka xulanay dadka, ha ahaadaan saaxiibadeena ama qofka aan jecelnahay, way naga fogaadaan weliba sabab la'aan. Su'aalaha adiga ku qabsanaya waxay tahay, waa maxay sababtu kaaga fogaaday saaxiibkaaga kugu qaalisanaa ama qofka aad jeceshahay? Laakiin si walba oo aad isugu daydid inaad u heshay jawaabta su'aashaasi, ma helaysid jawaab ugu habboon ama qalbigaaga qaadan karo. Waxyaabaha ugu yaryar ee kugu soo dhici kara waxaa ka mid ah, amuusan qofkaasi markii hore jeclayn, mise waxaad leedahay waxaa laga yaabaa inuu helo qof kale oo iga wanaagsan. Laakiin walaal, runta haddii aan kuu sheego, adiga ayaa sabab u noqon kara in qofku uu kaa tago iyo inuu kula joogaba. Waxaa laga yaabaa inaad qofka qalbigiisa dhaawacday wax badan. Waxaa laga yaabaa inaad gaarsiisay ilaa heer uu kuu sheegay waayo waxyaabaha qaar. Ogow, ma jiro qof u dulqaadanaya karaamadiisa oo lagu tumanayo qofkaas siduu doonan baa kuu jeclaadee. Sidoo kale ma jiro qof u adkaysan kara dhaawaca iyo xanuunka qalbiga, waayo waa mid aan la qeexi karin ama lagu cabiri karin fikir iyo erayo. Goortii aad silciso nasado qof oo aad ilaalin dareemihiisa, ogsoono waxaa dhimanaya qalbiga. Markastuu qalbigu dhaawac soo gaaraa waa markasta uu dhintaa. Haddii uu dhintana qofkaasi xaggiisa waxba kama noqon doontid adiga. Waana sababaha nagula fogaado, ma ilaalino qalbiyada kuwa aan jecelnahay ama na jecel. Sidaa awgeed walaal, ka fiirso waxaad samaynayso, hana dhaawicin qalbi ku jecel, kuna dadaal daryeelkiisa iyo ilaalintiisa. Gabagabadii waxaan ku leeyahay, qof weligaa ha ka filan inuu fahmo waxa ku dhibaayo iyo waxa ku farxad gelinayo haddii aadan qofkaasi u sheegin, waayo wax qalbigaaga ku jira ama uurkaaga qofna ma oga. Haddii aad soo dalbataan inaan barnaamij ka soo sameyno sida lagu ilaalin karo qalbiga qofka aad jeceshahay ama qalbiga dadka, noogu soo gudbiya qaybta faallooyinka ama qaybta hoose ee commentiga. haddii ay tahay markii ugu horreysay soo booqatan, waxaan ku leenahay nagu soo biir oo kanaalka subscribe dheh, kadibna fura gambarelka si ay kuu soo gaaraan muuqaal walba oo halkan soo gelino. Sidoo kale haddii janaalka u qaybna gaarsiiya asxaabtaada ugu yaraan hal qof si khayrka dhexdeen u camiro. Haddii barnaamijkan aad ka heshayna, fadlan like saar si ay nagu noqoto dhiirigelin iyo inaan soo badino muuqaalo noocan oo kale ah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.